wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa soo qaban qaabisay munaasabad lagu dhiirigelinayo bahda waxbarashada ee gobolka Togdheer si ay kor ugu qaadaan culumta kala duwan ay bixiyaan iyo xirfadooda aqooneed. Madashani waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha imtixaanaadka Soomaaliland, afhayeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland, gudoomiyaha gobolka Togdheer, maamulka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer, maamulada jaamacadaha kala duwan ee magaalada Burco, macallimiinta wax ka dhigta dugsiyada kala duwan ee gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiin kale. waxaana madashaasi lagu qiimeynayay bahda waxbarashada ee gobolka Togdheer iba furay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaanshe oo faahfaahiyay dulucda ay xambaarsan tahay munaasabadani. waa xaflad isha ku haysa ama ujeedadeedu ay tahay inaan qiimeyno ama aan dib u eegno sanad dugsiyeedkii dhammaaday 2018-2019 shaqadii la qabtay xubnihii ugu firfircoonaa ama shakhsiyaadkii doorka muhiimka ah ka ciyaaray hawlihii waxbarasho ee sanadka in halkan lagu xuso bini'aadankana waxa ku qaalisan damiirka haddaan wax kale la tarayn in damiirkiisa la yidhaahdo shaqo wanaagsan baad qabatay. dhanka kale mas'uuliyiinta jaamacadaha kala duwan ee gobolka Togdheer, macallimiinta wax ka dhigta dugsiyada gobolka Togdheer iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ku ammaanay dhiirigelinta ay u sameysay bahda waxbarashada ee gobolka Togdheer. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa barnaamijka wanaagsan iyo sida wanaagsan ee uu agaasimay isku xidhka uu sameeyay iyo shaqada ka muuqata waxbarashada. waa laga yaabaa dad fara badan daliilaan oo yiraahdaan waxbarashadii way liidataa macnaha culaysyo badan baa jira, laakiin anagu waxaan u soo taagnay dhowr iyo 30 sanadood in 30 sano ku dhow 20 sano iyo googo baan ka shaqeynay waxbarashada. maalin ka dambaysa dawlad ka sii wacanaysa maanta ayay ugu wanaagsan tahay. marka waxaan rajaynayaa inaynu tartanka lagu jiro iyo mashquulka la yahay inaynu ka qayb qaadano oo waxbarashada lagu tartamo. waxa halabuurka iyo curinta ay ka timi gudoomiyaha ay ka timi markii fikradda la soo jeediyay jaamacaduhu si fiican bay uga jawaabeen. jawaabtii ay bixiyeenna iyaguna way ka macaashi doonaanoo arday diyaarsan baa u tegi doonta sida natiijadii imtixaanka ka muuqatay. ilaahay baa mahadle. marka labaad waxaan la qabaa inta gaarka loo sii xusay ee maanta la maamuusay inay yihiin runtii dhiirigelin oo ay macnaheedu tahay in wax maqnaayo lumay oo la soo helay inay tahay. lama wada sii kala dhammaantood, laakiin inta ay soo xuleen waxaa laga yaabaa in kale inay jirto, laakiin macnihi waxa weeyaan waa in waa dadaashada dadaalka halkaa ka sii wada. gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi, afhayeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cabdilaahi Ibraahin Xaaji Xasan iyo gudoomiyaha imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax ayaa iyaguna kula dardaarmay bahda waxbarashada ee gobolka Togdheer inay halkaasi ka sii wadaan dadaalka ay ugu jiraan inay soo saaraan bulsho ka dhisan dhanka waxbarashada. wax kasta oo wanaagsan inay bilaabaan. arrintani waa arrin uguba runtii waxaanan aad iyo aad ugu hambalyeeynayaa gudoomiyaha waxbarashada gobolka Maxamuud Caynaanshe. waa arrin runtii muddo hore ahayd inay bilaabanto dalka oo dhan ka bilaabanto, waliba wasaaradda waxbarashada kaliya maaha wasaaradahoo dhan inay ku daydaan baan aad u soo dhaweynayaa. sababtoo ah shaqaalaheenu maadaama lacagtay qaataan ay tahay lacag yar oo aynu nahay dal aan la ictiraafin, miisaaniyadiisu yar tahay, haddaynu wax kala weyno kelimatu dayiba sadaqa siduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. markaa tani kelmad fiican weeyi inaynu markaa shaqaalaheennii wax qabanayey runtii aynu nidhaahno waad mahadsantihiin. marka maxamuud waxaan ugu hambalyeynayaa waxaanu uun sii xaqiijinaynaa Burco inay wax kasta oo wanaagsan runtii bilowdo. iyadana waxaan leenahay ilaahay ha u barakeeyo. abaalmarinta jaamacadaha la siiyey 6 jaamacadood ee abaalmarinta la siiyay inay bogaadinaya maxaad ku qiimayseen baan idho waxay yiraahdeen ardaydii fasalada afraad bay sanadkii dhaweyta hawl weyn nagala qabteen. qofka binaadmiga ahi marka uu wax qabto haddii aan la odhan waad mahadsan tahay iyo hawl fiican baad qabatay runtii waxa ma jirayaan oo runtii barnaamij aad iyo aad gobolka iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ba waxtar weyn u leh. barnaamijkan oo lagu abaalmarinayo dad shaqooyinkii loo diray sidii ay ahayd uga soo baxay
dad islaama baynu nahay waxaynu u baahanay qofka marka waajibkii loo diray uu ka soo baxo abaalmarinna wuu mudan yahay mahadnaqna wuu mudan yahay ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiiyey maamulka qaar ka mid ah jaamacadaha gobolka Togdheer macallimiinta wax ka dhigta dugsiyada kala duwan ee gobolka Togdheer iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland. Shucayb Xasan, telefishinka Sahan, Burco.